maanta waxaan safar ku mari doonaa taariikhda dalka Brazil oo ah dalka ugu weyn qaaradda Koonfurta Ameerika. Brazil waa dal caan ku ah kubadda cagta, keynta Amazon, qoobka ciyaarka samba iyo dabaaldegga Carnival. Laakiin ka hor inta uusan noqon dalka maanta la yaqaan, wuxuu soo maray gumaysi, adoonsi, dagaallo siyaasadeed iyo isbeddello waaweyn. Aan bilowno sheekada. Kumanaan sano ka hor intii aysan reer Yurub imaan, dhulka Brazil waxaa ku noolaa malaayiin qof oo ka tirsanaa qabiilo kala duwan. Waxay ku noolaayeen ugaarsi, kalluumaysi, beer falasho iyo ururinta miraha dabiiciga ah. Qabiilo badan ayaa ku noolaa keynta Amazon iyo xeebaha dalka. Mid kasta wuxuu lahaa luqadiisa, dhaqankiisa iyo hab nololeedkiisa. Waxay si weyn u ilaalin jireen deegaanka, iyagoo si xikmad leh uga faa'iidaysan jiray khayraadka dabiiciga ah. Sanadkii 1500 badmareen reer Boortaqiis ah oo la oran jiray Pedro Alvares Cabral ayaa gaaray xeebaha Brazil. Wuxuu dhulkan u sheegtay inuu yahay hanti ay leedahay Boortaqiiska. Markii hore reer Boortaqiisku waxay danaynayeen geed qaali ah oo loo yaqaan Brazilwood, kaas oo laga samayn jiray dheeh casaan ah. Geedkan ayaa la rumaysan yahay inuu magaca dalka sabab u noqday. Sanadkii 1808 qoyska boqortooyada Boortaqiiska ayaa u guuray Brazil kadib markii ciidamada Napoleon ay weerareen Boortaqiiska. Tani waxay Brazil siisay muhiimad cusub. Ugu dambayn 7 Sebteembar 1822 Amiir Dom Pedro wuxuu ku dhawaaqay madax bannaanida Brazil, isagoo yidhi erey caan noqday: Independencia ou morte, oo macnaheedu yahay xorriyad ama geeri. Brazil waxay noqotay boqortooyo madax bannaan. Adoonsigu wuu sii socday. Sanadkii 1888 waxaa la saxiixay sharci loo yaqaan Golden Law, kaas oo si rasmi ah u mamnuucay adoonsiga. Brazil waxay noqotay dalkii ugu dambeeyey ee qaaradda Ameerika ka mamnuuca adoonsiga. Talaabadan waxay beddeshay taariikhda dalka, inkastoo dad badan oo hore loo adoonsan jiray ay weli la kulmeen saboolnimo iyo fursado la'aan. Hal sano kadib 1889 ciidamada dalka ayaa afgambi sameeyey. Boqortooyadii waa la burburiyey, waxaana lagu dhawaaqay Jamhuuriyadda Federaalka ee Brazil. Tan iyo markaas, Brazil waxay soo martay madaxweynayaal badan, isbeddello siyaasadeed iyo dib u habeyn dhaqaale. Sanadkii 1964 ciidamada qalabka sida ayaa la wareegay talada dalka. Muddo ka badan 20 sano waxaa jiray xukun militari. Xilligaas waxaa jiray horumar dhaqaale oo dhinacyo qaar ah, laakiin sidoo kale waxaa jiray caburin siyaasadeed, xarig iyo xadidaad lagu sameeyey xorriyadda hadalka. Sanadkii 1985 talada waxaa dib loogu celiyey dowlad rayid ah. 3 sano kadib waxaa la ansixiyey dastuur cusub oo ilaa maanta saldhig u ah nidaamka dimuqraadiyadda Brazil. Maanta Brazil waa dalka ugu weyn Koonfurta Ameerika, wuxuuna ka mid yahay dalalka ugu dhaqaalaha waaweyn dunida. Waxay caan ku tahay keynta Amazon oo ah keynta roobaadka ugu weyn dunida. Webiga Amazon oo ka mid ah webiyada ugu waaweyn dunida. Kubadda cagta iyo ciyaartoy halyeeyo ah sida Bale, Ronaldo, Ronaldinho, Kak iyo Neymar. Dabaaldegga Carnival oo malaayiin qof soo jiita sanad kasta. Muusiga samba iyo dhaqanka hodanka ah. Brazil sidoo kale waa waddan leh khayraad dabiici ah oo aad u badan, warshado waaweyn iyo beero soo saara qaxwo, sonkor, soy, hilib iyo macdano kala duwan. Taariikhda Brazil waxayna tusaysaa sida dal uu uga gudbi karo gumaysi, adoonsi iyo dhibaatooyin siyaasadeed, una noqon karo mid ka mid ah waddamada ugu saamaynta badan dunida. Inkastoo ay weli jiraan caqabado ay ka mid yihiin saboolnimada, musuqmaasuqa iyo ilaalinta deegaanka, Brazil waxay sii ahaanaysaa waddan leh taariikh qani ah, dhaqan soo jiidasho leh iyo mustaqbal muhiim ah. Haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan like saar, la wadaag asxaabtaada, subscribe-na ku dhufo si aadan u seegin muuqaalada kale ee aan ku soo bandhigi doono taariikhaha dalalka kala duwan. Mahadsanidin.